السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa himilo online anigana waa Dr. Sakhaawuddin sida alaabad naga barateen waxaanu maanta duubeynaa qayb ka mid ah casharka oo ama casharada aynu hawada u gudbin doonaa ardada kala duwan ee dhigata himilo online sida darteed gacmo furan ku soo dhawaada waxaanu dhignaa diploma of midwifery, diploma of nutrition, diploma of nurse and inshallah hadii la yiraahdo luqadda Ingiriiskana waa ka mid qaybaha aynu dhigi doono bishan waxaan ugu talagalnaa arday cusub qaadano arday badanna way naga qalin jibiyeen sida daraadeed maanta waxaan dhiganaynaa qayb ka mid ah xanuunada ku dhaca dumarka gynecological condition ama gynecological problemka sida qayb ka mid ah placenta previa marka maqashaan waa qayb ka mid ah mandheertu inay ka soo hormarto caruurta halka marka hore mandheertu ay sareysay caruurta hooseeye sida darteed placenta previa aynu qeexna maanta aynu qaada dhigno qaybaha uu kala baxdo calaamadaha lagu garto iyo waxyaabaha ku ogaan karno very good placenta previa markaynu ka sheekeynayno definition qeexitaanka in a placenta previa marka laga sheekeynayo mandheertu oo soo dhacda is implanted macnaheedu waxa weeye inay mandheertu ku soo dhacdo in the lower uterus segmentiska makaanka wuxuu leeyahay qaybo hoose oo taxawtihiin inta loo qeybay marka qaybta hoose segmentiska ayuu soo galaya gaar ahaan inta ka hooseysa lafta gumaarka ama bisqinta segmentiska ayuu ku soo dhacaya ma garanaysaa mandheerta ayaa soo dhacaysa minis mandheerta marka hore kor bay jirtay caruurtu way ka soo hormaraysaa marka ayada ah third and located over the internal os waxay gaaladu u yaqaaneen os micnaha wuxuu ku soo dhacaya qaybta hoose ee makaanka very good etiology maxaa sababi kara marka ayada dhibaatadan etiology ahaan ama dhibaato ahaan waxa keeni kara ko endometrial abnormally gidaarka ilma galenka oo aan caadi ahayn qayb ka mid ah gidaarada waxa loo qaybiyaa endometrial myometrial iyo marka saddexda qaybood oo la qaybanayo okay marka maxaa lagu arkaa gidaarkii ilma galeenka oo aan caadi ahayn tusaale ahaan xagga dabacsanaanta musculiska si fiican u shaqeynaynin relaxed aanan jirin dhibaatooyinkaas ka mid ah scared or vascularized maxaa dhacay scared kood marka scared nabra ay hadii jiro ama vascularized endometriumka waa sidii waan sheegay maqaarkii gidaarkii yani muruqyada ilma galeenka oo aan si fiican u shaqeynaynin oo vascularized waxa la yiraahdo aan sameynaynin very good curettage delivery haddii gabadha horay tusaale ahaan ilmo laga soo xaaqay oo lagu sameeyey curettage delivery wax la yiraahdo oo ah in markaa ilmo laga soo qaado oo ama qodobkan u dhacay cs cesarean section sidoo kale haddii ay jirto infection oo kale infection meeshaas waa infection of endometrium caabuq ku dhaca gidaar waa infectionka jirka bini'aadamka meelo fara badan buu gaaraa infection of endometrium marka ayada ah oo la arko very good qodobka afraad aan rabno etiology-ga geeno waa placental abnormally mandheertu aan caadi ahayn oo tusaale ahaan large placenta inay ballaaranto oo kale haddii ballaaran tahay ama xadku ka baxday waxyaabaha la midka marka ayada ah alright weliba qaybaheena ku jirnaaye classification dhibaatadan aynu sheegaynaa maxaa loo kala saari karaa classification waxaa loo kala saari karaa kow saddex qaybood baa loo kala saaraa marka mandheertu ay ilmaha ka soo hoos marto waxaa la yidhahdaa total placenta previa means gebi ahaanba inay hoos ku soo dhacdo oo gebi ahaanba ay soo gacdo partial placenta previa in qayb ka mid ah mandheertu ay dhinaca inta ka soo goodo dhinaca kale kaga dhigan tahay geeska hoose kaga dhigan tahay malignal placenta previa waxa la yiraahdaa malignal placenta previa saddexdaas qaybood ayaa loo qaybinayaa mandheerta haddaba waxaan rabaa inaan fahanno signs and symptoms calaamadaha aynu ku garan karno signs and symptoms waa maxay calaamadaha aynu ku garan karno qofkan in yani placenta previa uu leeyahay ama ay tahayba ko painless xanuun vaginal bleeding waxa jiri karo in dhiig ka yimaado marinka dhalmada qodobka labaad abnormal fetal position boska ilmaha ama positionka ilmaha caloosha ku jiraan oo aan caadi ahayn heavy bleeding waxa suurtagal mararka qaar in dhiig bax badan lagu arko gabadha dhiig aad bax oo culus qodobka afraad anemia in dhiig la'aan ay dhacdo oo gabadha dhiiga ka baxay aawadeed dhiig la'aan ay dhacdo ama shock ama ay shoogroodo okay uterus
in ilmagalenkuna is soft makaanka lagu arko jilicsan markii sida la yiraahdo halka ilmuhu cuf lahaayeen meesha soo celinaayeen uterus is a soft inuu jilcan yahay oo relaxed uu yahay dabadeedna uu kala daadsan yahay in isla markaasna non tender damqashana aysan jirin oo qofka markii sida la yiraahdo caadi noqonaya haddii laakiin caabuq infection uu jiro waxay ku garan kartaa dhaqaaqa gabadhu ay sameeyso hadba in markaasi inta badan gabadhu waxay ka cabaraysaa xanuunka qaybta hoose meesha suunka laga xidho hoose rag uga xidhaan diagnosis maxaa rabnaa inaan ku barno gabadha aynu ogaanaynaa diagnosis-ka kow waa ultrasonography in computer saarno aan ogaano qaybta ilmuhu jiraan qaybta ay markay jirto rectal examination in baaritaan laga sameeyo oo vaginal examination ka meesha rectal loo bedelo oo dabada faraha laga galo speculum examination in qalab la geliyo dabadeedna inuu ku ogaano speculum waa qalab lagu kala furo barinka dhalmada dabadeedna inuu ku ogaano marka ayada waxyaabaha inta badan inuu ku daaweynayno waxa weeyaan relax inuu qofka nasto sariirta inuu ku nasto dhaqdhaqaaqa uu joojiyo culays fara badan aanu qaadan waxyaabaha qofka bini'aadam haddii uu infection jirana infectionka in laga daaweeyo oo antibiotic la jiyaal la siiyo marka ayada sidaa daraadeed in markaasi gabadha culayskana laga ilaaliyo oo adag shaqada adag in qabarka ayada dhiig la'aantana laga daaweeyo anemiyada HB-ga laga daaweeyo halkani waa Himilo online anigana Dr. Sakhawuddin gacmo furana ku soo dhawaada adigoo gurigaaga joogo hel cilmi dhameystiran iyo aqoon-yahano oo markaasi shaqadoodu tahay cilmiga caafimaadka 20 sano khibrad ka badan oo haysta waxaynu dhignaa waa dibloomoyin dhawaan waan rajaynaynaa inaan jaamacada isu bedelno Himilo online oo degree insha Allah hadii la yiraahdo ardaydii hore nooga dhiganaysay waxaan u ballan qaadaynaa inay bachelor noqon doonaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.